الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي اللح إيو تضباطنات iyo kitaabkeeni xikam wa fawaid min rawaac alimaam ibn alqayim raximahullah. waxaan ku jiray adkaartii adkaaru sabaaxi walmasaa. meelo gaara baan rabaa inaan ishaaro. mar labaad waxaa la yidhi suuratu likhlaas iyo mucawadateynka waa suuratu likhlaas, qul huwallah, qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas. 3 maraatin 3 jeer ruuxii aqriya galabtii iyo subaxiina 3 jeer baa tiiba aqrinaysaa, galabtiina 3 jeer. man qaalahaa 3 maraatin ruuxa yidhaahda 3 jeer xiina yusbixu markii waagu kuu baryo iyo waxiina yumsi iyo markii galabtii la gaadho, waxaa qofkaa kafathu min kulli shay, waxay kaa ilaalinaysaa wax walba. waxay kaa ilaalinayaan suuratu likhlaas iyo qul acuudu birabbi lfalaq, qul acuudu birabbi nnaas. waxay kaa xijaabayaan wax walbay kaa ilaalinayaan. marka waa arinta labaad ee qofku aan rabay inaan iyadana ku baraarujiyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. ayib, waxaa kamid a waxyaabaha adkaartada wada aqrinay, lakin anigu meelaha aan rabay in kugu baraarujiyo waxaa kamid ah rasuulku sal lla alay slam wuxuu yihi qofka yidhaahda allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii waana cabduka waana calaa cahdika wawacdika ma statactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu'u laka binicmatika calaya waabuu'u laka bidanbii faغfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta. man qaalahaa, balu fiirsada dikrigaas aad sayidulistikfaar baa la yidhaahdaa, waa midda ugu sii fadliga badan bay tahay sayidulistikfaar. man qaalahaa muuqinan biha, ruuxii intaa yidhaahda isagoo oo yaqiininayo ikhlaas ay tahay xiina yumsi marka uu galabaysto oo famaata fii leylati habeenkaa dhinta dakhala aljanna, jannadu gelaya. wakadaalika idaa asbaxa, haddii uu waagu u bariya qofka yidhaahda oo intaa aqriyo oo maalintii dhintana jannadu gelaya. waa xadiis imaamu bukhaari uu soo saaray. yaa dayn kara marka inaad aqrido sayidulistikfaar. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دعاء كلا ربنا إيادنا إشارة وحوية. دعاء الرسول يقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك 4 مرات. 4 jeer qofkii aqriya ducadan 4 jeer ruuxii aqriya subaxii. bal iyadana aan aragna wuxuu yidhi man qaalaha xiina yusbixu aw yumsi, qofka aqriya subaxii waagu markuu baryo iyo galabtii 4 jeer 4 maraatin 4 jeer yidhi aqriya, actaqahu allahu min annaar, ilaahay wuxuu ka xoreeyaa naarta, ayuu ka xoreeyaa rabbi naarta ayuu actaqahu allahu min annaar. ayib, xadiiskaa isagana bacdulculamaa way sanadkiisa waxbay geliyaan, laakiin bacdulculamaana way xasan bay ka dhigeen. marka insha allahu tacaala waa xadiis isaguna cadiim ah. 4 jeer in la aqriyo, ilaahay subxaana wa tacaala cahdigiisii iyo magantiisii aad ku jirto uu qofku sheego, waa qeyb ka mid. waxaa kamid a adkaartaa raba si gaara inaan u tilmaamo dikrigan allahuma maa asbaxa bi min nicmatin aw biaxadin min khalqika faminka waxdaka laa shariika lak falaka alxamdu walaka ashukru. rasuulku wuxuu yihi sal lla alay slam man qaalaha xiina yusbix, qofka intaa yidhaahda markii waagu u baryo faqad addaa shukra yowmihi, maalintaa shukrigii lagaa raba waad gudatay, mahadnaqii rabbi kugu lahaa waad gudatay. waman qaalaha xiina yumsi, qofka yidhaahda galabtiina faqad addaa shukra leylati, habeenkaa shukrigii lagaa rabay waad gudatay iyadana. marka waa arrin iyaduna aada u cajab badan wey. dikriga xiga waxa weeye rasuulku wuxuu yihi xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu huwa rabu lcarshi alcadiim 7 maraat. 7 jeer qofka intaa aqriya xasbiya allahu laa ilaaha ilaa hu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim 7 jeer. man qaalahaa xiina yusbixu waxiina yumsi 7 maraat. 7 jeer ruuxa yidhahda galabtii iyo subaxii
kafaahu allaahu maa ahamahu min amri dunya walaakhira. wax alla wixii murug kuga hayay oo umuurta adduun iyo umuur aakhira ah oo ku walwalgelinaya oo dhan ilaahay baa kaa xijaabaya subxaanahu wa tacaala. iyaduna waa faa'iido kale weeyaan. waxaa ka mid ah xadiiska rasuulku yihi bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa wahuwa asamiicu alcaliim. man qaalaha halaathan saddex jeer ruuxa yidhaahda idaa asbaxa markuu waagu baryo wa halaathan idaa amsaa galabtiina saddex jeer akhriya lam yadurahu shay-un waxba ma dhibayo qofka, wax ku dhibaya arki maysid biidni illaahi tabaaraka wa tacala. waxaa ka mid ah xadiidka uu rasuulku yihi radiitu billaahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي 3 مرات صدح جير. من قالها 3 روحي صدح جير أقري حين يصبح مركو واو بريو 3 حين يمسي إيا مركي قلبتي لقارو كان حقا على الله إلهي وحاكو أو واجب الله استسارع إنما صار وحاكو أن يرضيه يوم القيامة. أنت يوم القيامة إن قفك للرالي ورال نقضه أي إلهي سبحانه وتعالى دشيسا. سبحان الله وحلا دين كرما أيضا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هينا الفيديو.